habeen kale oo kooxda Liverpool ay maradu ka dhacday harageedana lagu tukaday midna lagu baqtiyay kadibna ay ka soo kaban weyday dhaawacyadu harbeeleen oo xidigo meherada ku xidheen sariiraha. Liverpool ayaa guuldarro xanuun badan kala kulantay Galatasaray xilli Alisson sariirta naxashka lagaga dhex qaaday cawska cagaaran kadib markuu sariirta meher ku xidhay kulankani. kooxda Liverpool ayaa guuldarro hal iyo eber kala kulantay Galatasaray kulan ka tirsanaa Champions League oo ka dhacay garoonka Ramisburg ee magaalada Istanbul. goolkan kaliya ayaa yimid ciyaarta daqiiqadii 16aad markii Victor Osimhen uu rigooro u dhaliyay kooxda reer Turkiya kadib qalad uu ku galay Sobalasay ciyaaryahanka Yilmaz gudaha xerada ganaaxa. wixii markaasi ka dambeeyay Liverpool ayaa ku qasbanaatay inay raadiyaan barbardhac. Reds ma aysan muujin awood weerar oo cad waxaana ku adkaatay inay helaan fursado gool loo filan karo. daqiiqadii 88aad Liverpool ayaa heshay rajo markaasoo loo dhigay rikoore kadib markii Kanute lagu galay qalad uu sameeyay Singo. hase yeeshee kadib dib u eegis adeega VAR oo loo baahday ayaa go'aanka laga noqday taasoo niyad jabisay taageerayaasha kooxda martida ee safarka soo galay. inta badan qaybtii labaad Liverpool ayaa haysatay kubadda oo weeraro badan qaaday balse difaaca Galatasaray ayaa adkaystay oo ka dhabeeyay wixii ay garoonka u soo galeen kuwaasoo iska dhigay derbi aan laga gudbi karin. guuldaradan waxay Liverpool u tahay mid labaad oo xidhiidh ah tartankan taasoo keentay in su'aalo la iska weydiiyo qaab difaacashadooda. dhanka kale Galatasaray ayaa guushan muhiimka ku xoojinaysa rajadooda inay ka soo baxaan wareegga kooxaha isla markaana muujinaysa inay yihiin tartamayaal dhab ah oo Yurub iska xaadirin kara. haddaba kulanka si gaar ah markaynu isu dul taagno waxyaabihii sida gaarka looga diiwaan geliyay 9 shuud oo lagu tuuray kooxda Liverpool ayaa 4 lagu aadiyay waa Galatasaray 16 shuud ay tuurtay kooxda Liverpool oo noqday kuwa aan natiijada waxba ka bedelin 4 ayay ku aadisay. kubadaysashada Galatasaray waa 33% halka ay 67% ay ka tahay Liverpool bila natiijo. 266 baas oo ay samaysay kooxda Galatasaray 180 baas ayaa ka hirgalay halka 525 baas oo ay samaysay kooxda Liverpool. 525 baas oo Liverpool samaysay 456 baas ayaa halkii loogu talagalay ku dhamaaday. taakaladu waa 25 kooxda Galatasaray iyo 13 kooxda Liverpool. faawaladu waa laba dheeri waa 12 iyo 14. koorayaashu waa 3 kooxda Galatasaray iyo 7 ay heshay kooxda Liverpool aan natiijada waxba ka bedelin. haddaba xasuuso 27 Sebtembar harageeda ayaa lagu tukaday kooxda Liverpool oo Crystal Palace ayaa ceebaysay oo macawista ka riday halka 30 Sebtembarna ay u tahay maalin madow iyo habeen madow kadib Galatasaray carrada Turki markay 3 dhibcood cidiya Marojes kaga qaaday. reertii Liverpool way leembaxaysaa waxaan dhacaya wax kale ma masiiba ku absatayba nimanka Crystal Palace u baafashilisay iyagoo cabirkoodu u xidhan yahay oo aakhiru lacibku baxsada ayaa iyagii aakhiru lacibkeena lagaga baxsaday. nimankii masiiba iskaga habsatay nimankii Liverpool allow sahal waa kuwa sidii leen macaanta meermaye leen baxaye wax kale inagu oran mayna. kulamada kale markaan dul istaagno kooxda Chelsea oo guul dirqiya ka gaadhay Benfica xilli kooxda Mourinho oo ay ku fashilantay Stamford Bridge. kooxda Chelsea ayaa guul hal iyo eber ka gaadhay Benfica kulan ka tirsan Champions League oo ka dhacay qalcadda Stamford Bridge iyadoo goolka kaliya oo ah mid ay iska dhaliyeen difaacii kooxda martida ee Richard Royce. goolka ayaa yimid daqiiqadii 18aad markaasoo Rios uu isku dayay inuu iska bixiyo kubad la soo dhex dhigay xerada ganaaxa balse si qalad ah ayuu shabaqiisa ugu hubsaday. iska dhaliyay weyn ayuu 3 dhibcood kooxda u hibeeyay. Chelsea ayaa hoggaanka ku ilaalisay ilaa dhamaadka qaybta hore inkastoo Benfica ay heleen fursado yar oo ay isku dayeen inay ku barbareeyaan natiijada kulanka. markii la soo laabtay Benfica ayaa cadaadis badan saartay Chelsea iyagoo ku hanweynaa inay jabiyaan difaaca Blues. hase yeeshee kooxda martida loo ayaa adkaysi muujisay iyadoo difaacyadu ay si nidaamsan u xirteen khatarihii soo food saaray ee kaga imanayay kooxda galaydhada. labada tababare ayaa sameeyay bedelo si loo helo kala duwanaansho balse fursado cad oo gool lama helin. ciyaartu waxay noqotay mid xiisad badan oo ay ku jirto dhaawacyo iyo kaadhar jaalle ah. Benfica ayaana ku guuldareysatay inay helaan barbardhac. kulankan ayaa xamaasad dheeriya yeeshay maadaama Jose Mourinho uu ku soo laabtay Stamford Bridge isagoo tababare waa Benfica. soo laabashadiisu waxay ciyaarta siisay sheeko gaar ah balse kooxdiisa ma aysan helin guul lagu xasuusto. kulanka markaynu eegno sida gaarka markaynu isu dul taagno 8 shuud ay tuurtay kooxda Chelsea 3 ayay ku aadisay halka ay 9 ka tuurtay Benfica oo ay 3 ku aadisay. kubadaysashada 56% bay Chelsea ahayd halka 44 ay ka ahayd galaydhada.
512 baas oo Chelsea samaysay 450 baasayaalkii loogu talagalay ku dhamaaday 400 oo buuraa oo baas oo ay samaysay Benfica 329 ayay dhamaystireen taakalada kooxda Chelsea oo sababta kaadhadhka Aruda ay u badsadeen dhul jiifka istaadinta iyo isqubidda iyo sasaydintuba xalaal ayay habeenkani u ahayd oo 30 taakal ayay sameeyeen halka 16 taakal ay ka samaysay Benfica faawaladu waa haldheeri waa 13 iyo 14 koornayaasha 3 ayay heshay kooxda Chelsea halka ay 5 ka heshay kooxda Benfica oo aanay waxba natiijada ka bedelin sidoo kale Jay Pedro isaguna casaan ayuu qaatay kulankani oo aakhir lacibkay goor ciyaartuba sii dhamaanaysay ayuu ceeboobay oo damaradu ka dhacday toobariisi xulkuna xalore Thomas Tuchel diiradu saa ugu hayay halkaas ka soo qaawisay marka Chelsea horta way ka meeratay toddobaadkii dhaweyd masiibadii ka dhacday Premier League way iska madax digsadeen kulankan markaynu iyadana isdul taagna kooxda Real Madrid oo wacdareysay oo kooxda reer Kazakhstan ku xasuuqday 5 gool kadib markii Mbappe uu wacdareeyay kulankani Real Madrid ayaa guul weyn ka gaadhay kooxdii ay martida u ahaayeen Kairat Almaty kadib markii ay 5 ku xasuuqay kulan ka tirsanaa wareegga labaad ee heerka gurubyada Champions League oo ka dhacay garoonka Central Stadium ee magaalada Almaty Real Madrid ayaa hoggaanka qabatay daqiiqadii 25aad kadib gool rikoodha u dhaliyay Mbappe weeraryahanka reer France ayaa mar kale shabaqa soo taabtay daqiiqadii 20aad kadib baas dheer oo ku helay gool haya Courtois daqiiqadii 47aad ayuu Mbappe dhaliyay goolkiisa saddexaad markii uu kubad ka helay Rodrigo oo gulaar u sii diyaariyay taas oo uu ka toogtay geeska xerada ganaaxa isagoo u dhaliyay si qurux badan Camavinga ayaa ka dhigay 4 daqiiqadii 83aad isagoo madax ku dhaliyay isagoo madax ku dhameystiray kubad uu ka helay Rodrigo daqiiqadii 90aad markii ay dhaaftay oo waqtigii dheeriga ah Ibrahim Diaz ayaa dhaliyay goolka shanaad ee Real Madrid natiijadan ayaa ka dhigtay Real Madrid ay gaadho 6 dhibcood siina qabato hoggaanka horyaalka si ku meel gaar ah halka Almaty ay weli leedahay eber dhibcood iyo kaalinta ugu dambayso aan cidiba xagga dambe aanay ka xigin oo salaanka waxa ugu dambeeya fikta ugu dambaysa ka haysta waa iyaga Mbappe si gaar ah markaynu isagana isu dul taagna waxyaabihii kulankani sida gaarka looga diiwaan geliyay Mbappe oo isaguna kulanka kadib hadlay ayaa waxa uu ku dhawaaqay ma iloobi karo wixii nagu dhacay dhamaadkii toddobaadkan guul darradiina soo gaadhay Atletico Madrid waa in aan marna la iloobin inkastoo tani tahay tartan kale waa in aan had iyo jeer maskaxda ku haynaa wixii dhacay oo aan ka shaqeyno horumar joogta si aan u hubino in aysan soo noqon habeen kale oo noocaas wuxuu intaasi ku daray shaqadaydu waa in aan caawiyo kooxda anigu wax kale kama fakaro oo aan ahayn taas waxaan sameeyaa dadaalkayga ugu badan si aan kooxda guul ugu horseedo haddii aan gool dhaliyo waa wax fiican haddii aan siyaabo kale u caawiyana sidoo kale waa wax fiican waxa ugu muhiimsan waa inay kooxdu guul hesho oo ay koobab urursato markii wax laga weydiiyay xidhiidhka uu la leeyahay Huller Mbappe ayaa ku jawaabay waxaan isku dayaynaa inaan ka caawino inuu soo bandhigo awoodiisa ugu fiican hadda si fiican ayuu ciyaarayaa aad ayuuna u faraxsan yahay inuu qayb ka yahay kooxdeena isagoo ka hadlaya fursadii uu khasaariyay Mbappe haddii aan helo 5 fursadood waxaan rabaa inaan dhammaan 5 dhaliyo taas waa sababta Real Madrid ila soo saxeexatay had iyo jeer waxaan doonayaa wax intaas ka badan maanta waxaan dhaliyay 3 gool waana wax fiican balse waxaan aaminsanahay inaan dhalin karo kuwa intaas ka badan Mbappe sidoo kale kulankani waxyaabaha sida gaarka looga diiwaan geliyay 8 kulan oo ciyaaray gabi ahaan 12 gool ayuu dhaliyay labana caawiye ayuu ka xidigan calankiisa ayaa kor u socda maalmahani sidoo kale wuxuu noqday xidiga afraad ee ugu hadriga badan Champions League iyo heerka gurubyada marka la eego sababtoo maxaa yeelay Messi oo 8 Ronaldo 8 iyo Roberto Lewandowski oo 6 Karim Benzema oo 4 Mbappe oo 4 ayuu kaalinta afraad ku soo galay hadrig ayuu haystaa Champions League marka Real way ka meeratay murugadii iyo toddobaadkii adkaa ee maalmaha kale uga duwanaa markaynu eegno kulamada kale ee dhacay kooxda Inter Milan iyaduna kooxda Slavia ayay xasuuqday oo 3 u dhiibtay Martinez shabaqa waa soo taabtay Dumfries ayaa isaguna xigay halka Martinez mar kale ku ceshaday kulankuna sidaas ayuu ku soo dhamaaday Inter dhoola cadeynayay wahayd habeenkani kooxdii canaasiirta ee jabhadda Atletico Madrid iyaduna 5 gool wax 5 ka yarba toddobaadkan ma dhiibayaan Real bay 5 ku soo garaaceen oo Frankfurtna 5 bay u dhiibeen habeenada kale ka duwan ayay qaateen 5-1 kulankaasina ku dhamaaday Raspadori Normandy Griezmann Simoni Alvarez shantaasiba shabaqayay si xaraga leh u soo taabteen kulankani laakiin wuxuu kulankan u calaamadsanaa Antonio Griezmann oo goolkiisii 200 u dhaliyay
kooxda Atlantico Madrid wuu iska soo xiray toddobaadkii dhaweyd markuu Real iskaga ciyaaryamadii iyo ciiradii ku xidhneyd goolka ka haysatay ilaa bishii February kooxda Real ayuu ku soo tufay waa kan mar kale Frankfurt iyadana u raaciyay oo uu leeyahay Burjigi waa uu soo noqday waxaanu noqday xidiga koowaad ee 200 oo gool isagu kooxdani siiya Antonio Griezmann waxa ku xiga Luis Aragonés Adrián Escudero oo 153 goola Fernando Torres oo 129 iyo Jesus Ilechie Great oo 127 goola runtii Griezmann heeryadii 200 gool waa uu gaaray muddo badan ilaa February markuu shabaka ka caaganaa kulamada kale aan sii guud marno kooxda Tottenham Canaasir ayaa habeenkii heshay oo kooxda Bode Galamet ayaa 2-2 ay kala wada galeen xilli Tottenham loo baqayba maadaama labadooda gool ay mar dambe yimaadeen gelin horeba 2 ayaa loo dhiibay tan kale kulankani Tottenham waxa lagu tuuray 18 shoot halka 4 kooxda Bodo ay ku aadisay 8 shoot oo kaliya ay Tottenham tuurtay saddexna way ku aadisay kubadda haysashada waa laga badnaa xitaa Tottenham 250 kooxdan ahayd halka 48 ay ka ahayd kooxda Tottenham 505 baas ay kooxdani sameeyeen 440 baas ayaan halkii loogu talagalay ku dhamaaday halka 460 baas ay sameysay kooxda Tottenham 399 ay dhamaystirtay taakaladu waa haldeeri waa 17 iyo 18 faawaladu waa 11 iyo 7 koornayaashuna waa haldeeri waa 4 iyo 5 marka Tottenhamna habeenku muu qurux badnayn oo inay si xaraga leh u dhamaysatay ayay doonaysay balse habeenkani way ku xumaatay xaaladdu Bayern Munich iyaduna habeen qurux badan bay qaadatay 5 gool ayayna ku badisay Company dhool cadeynayay oo ahayd iyo Harry Kane xubintu waa kariska iyo kalaadintii anigu waxaan ahay Maxamed Tirika middan xigtaynteenu ku kulmi doono inta ku horeysa kooxaha isballaqa intaynu halkan ku karsan doono sida ayaa amaana Allah